nabaday dhegaystayaal waa qiso mucjisaadkii ugu yaabka badnayd ee la maqlo muddo dheer la qarinayay oo ka dhacday Siberia dalka Ruushka waana sanadadii 70-aadii ay bilaabeen xisbigii shuuciga ka tirinayay midowga Sovieti barnaamijka noociisa horey loo aragay ku qodayaan gudkii ugu dheera abidi bini'aadan qodo waana hadafka barnaamijkan uu ahaa barin la cadeeyay inay jiraan caalamiyo inaga hooseeya inay jirta cadaabiye la gaaro gunta hoose dhulkan aynu ku noolnahay ilakabyada kala sarreysay dhulkana la dhaafo dhulka hoostiisa laga soo baxo waana barnaamijkan lagu weyneynaya maqaamka cilmiga ee aaminsanaayeen shuuciyiintii jiritaanka Allah dafirsanaa waxaana barnaamijkan hogaaminayay Dr. Zakov oo ahaa caalimka ugu weyn midowga Sovieti ee cilmiga geologiga waxaana la sheegay in midowga Sovieti uu muddo 24 sano qoday godkan oo ka ugu dheer caalamka iyagoo qoday masaafo dhan 15 kiiloomitir dhulka hoostiisa waxayna la kulmeen caqabado badan waxaana ku hor yimid biyo iyo macdano kala sarreeya waase markay gaareen 15,000 oo mitir dhulka hoostiisa ka hor yimid naar iyo dab xoogan oo darajada heerkulku sare u dhaafay 1 digri waxaana saynisyahannada Ruushka ku sii dhiiradeen inay sii qodaan waxayna ku dhaadhiciyeen kamarado heerkulka oo adkaysta iyo weliba qalab lagu dhagaysto dhaqdhaqaaqa gedgediska lakabyada dhulka haddaba se arrinka ugu xiiso badan mucjisada weyn ahaa ayaa dhacday sanadii 1989 waxaana dhacay mucjiso weyn kadib markii iftiin weyn oo nuur uu ka soo bidhaamay godka waxaana shaqaalihii iyo culimadii la maqashiyay qaylo iyo cabaad ka malaayiin qof oo la cadaabayo Dr. Zakov oo habeenka isagu goobjoog ahaa ayaa amray in la damiyo dhammaan qalabka wax qodaya waxaana dhageysteen cabaadka godka ka soo burqamayay waxaana sii xoogaystay cabaadka iyo dhawaqa malaayiin qof oo la cadaabayo oo iyagu argagax galiyay shaqaalihii Ruushka ka shaqeynayay godka waxaana Dr. Zakov uu qiray habeenkaas hadal markii dambe caan baxay wuxuuna yiri anigu waxaan hay caarin aaminsan shuuciyadii cilmiga maanta se waxaan qirayaa inuu jiro Allah cadaaba xukuumadii midowga Sovieti ayaa la sheegay shaqaalihii godkan dhammaantood ka shaqeynayay inay si sakineen ka mayray xusuusta codadkan mucjisada oo muddo ay qarinaysay KGB-du ayaa sanado dhaweed uu nala wadaagay caalamka arrinkan ayaa xitaa waxa ka hadlay Sheekh Weyn Zindani oo marka dambe aad maqli doontaan digniin haddaadna dhagaysan karin codadkan oo calool jilicsan tahay haddaawan malaayiin qof oo la cadaabayo oo aan hadda idiin soo daynayno شريط أوضح من هذا وأنا أطلب من الإخوان الذين سجلوا هذا الشريط أن يعيدوا تسجيله وأن يعاد تسجيله بصوته الواضح الذي سمعناه أول مرة وهذا الشريط فيه أصوات لصراخ ملايين من البشر وفيه تميز واضح لأصوات النساء وأصوات الرجال فما هي قصة هذا الشريط؟ ما قصة